السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالقا سو دواده وعشركي تضباط aynu ka sameynayno barashada sida loo sameeyo website e-learning ah inagoo markaa isticmaalayna Tutor LMS waxaan iska soo saxnay pageski iyo waxyaabaha aan haysanay kadib waxaa imaan doonaa halkan ay ku qoran tahay Tutor LMS si markaa aynu settingka iyo dhammaan u hagaajisano wax walba oo ugu baahannahay plugin-kan marka koobaad waxaa imaanaynaa halkan Tutor LMS waa hufurgaraynaynaa kadibna hoos ayaan usoo degi doonaa waxaan dhigi doonaa settings intaa dabadeed waxaa active inoo ah sida kuu muuqata general wax badan kama bedeli doono insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo marka koowaad waxaa samaynaynaa halkan waa inay kuu dooran tahay dashboard waxaa laga yaabaa marka koowaad select option inay kuu dooran tahay idan waxaa samaynaysaa marka inaad soo furto marka waxaad dooran doontaa dashboard waa halka arday hadduu iska diiwaan geliyo website-keena uu ka heli doono dhammaan xogtiisa haddii ahaan lahayd kooras ku iibsaday midda dhex u maraysa miduu dhameeyey shahaadooyinkiisa iyo waxyaabahaas oo dhan waayahay qaybtan hoose imaaw waxaa loo yaqaanaa terms and conditions page waxay naga saacidaysaa qofka iska diiwaan gelinayo website-keena shuruudaha iyo waxyaabahan ku xiran halku ka akhrisan lahaa waay haddii aad xasuustaan muuqaalkii ka horeeyey waxaan soo samaysanay privacy policy website-ka ayaa si automatic ugu sameeyey laakiin innaga draft ayuu ahaa markaa publish ayaan ka dhignay kaas ayaa dooranaysaa markaa privacy policy hoos ayaa usoo degi doontaa halkan marka koobaad way xiran tahay enable marketplace-ka sidan oo kale waa idan waa furanaysaa markaa halkan waa inaa on ka dhigtaa markaa hoos usoo deg wuxuu ku leeyahay dadka macallimiinta maadaama marketplace ka dhigtay adiga aysan kugu koobnayn website-kani macallimiin badan wax ku iibin doonaan si dakhli badan halka uu kaaga soo galo ma u ogashahay in macallimiintu koorsooyinka iska publish gareeyaan adoona markaa maamulayn halkan ha isku furin sideeda u daa sababtoo ah waxaa laga yaabaa macallin intuu koors soo dhigo uu publish gareeyo arday lacag uu ka qaato deetana uu iska tirtiro markaa idan marka halkan ha u furin sidan ha ahaato sidoo kale halkan hoose waa course history weeye macallinkan ha tiri karo course-ka uu soo dhigay halkan ha u furin waa ina adigu aad tirtaa fasaxa u siinin midda qaybtan hoose wuxuu ku leeyahay become an instructor button dashboard-ka hadda aan soo arkaynay page-kiisa dhexdiisa haddii aan ku dara ka waran arday walba ee ku jiraayay inuu macallin noqon karo yacni uu soo codsan karo macallinimo طبعا halkan waad u furi kartaa waad iska deyn kartaa laakiin inaad u furtaa kuu khayroon iskaga fur waayo halkan waxaan dhihi doonaa save changes